hay-adda noodo ayaa kulan ballaaran oo ku saabsan waxqabadkii hay-addu ka qabatay gobolada Sool iyo Cayn oo muddo ku dhow 10 sano ahayd ka shaqeynaysay ama ka howlgalaysay ayaa lagu soo bandhigay magaalada Buuhoodle. kulankan waxaa ka soo qayb galay oo lagu cusbay maamulka gobolka Cayn kan degmada ururada haweenka bahda caafimaadka iyo mas'uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka Buuhoodle. ugu horeyn waxaa halkan ka hadlay Maxamed Xuseen Aadan madaxa qaybta caafimaadka ee hay-adda noodo waxaan u warbixin dheer ka bixiyay adeegyada caafimaad ee hay-adda u hayso bulshada gobolada Sool iyo Cayn. waxaa madasha lagu soo dhaweeyay qaar ka mid ah cuqaasha iyo waxgaradka deegaanka Buuhoodle maamulka jaamacadda bariga Afrika gudoomiyaha gobolka Cayn Cabdirasaaq Xaaji Xasan Xundub gudoomiyaha ku-xigeenka golaha deegaanka isla markaana kusimaha gudoomiyaha golaha deegaanka Cabdiqadar Diiri Gamaadid waxayna dhamaantood isku raaceen oo si weyn ugu mahad celiyeen waxqabadka hay-adda noodo ay ka hayso gobolada Sool iyo Cayn. waxaa la aasaasay 1 May 2008 waxaa lagu aasaasay Buuhoodle waxaana aasaasay bulshada reer Buuhoodle qayb kamid ah oo markaas aqoon-yahaniinteedii ahaa bulshada labeenteedii ahaa oo isku tagay filay waxa weeye inay ka shaqeeyaan baahida bulshadooda gaar ahaan kuwa baahida gaarka qaba kuwa naafada ah isbeddelna ku sameeyaan runtiina isbeddel weyn waa la sameeyay progress wuxuu ka soo shaqeeyay organization-kan mashaariic badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin ama quudinta aan shardiga lahayn waxa la yiraahdo oo ah in dadka dhibaataysan oo IDP-yada ah qaxootiyaasha in la siiyo waxa la yiraahdo raashin ayadoo aan wax shardiga lagu xirayn ama ayagoo aan shaqayn la siinayo raashinkaas waxa kaloo wadnay mashaariic ay ka mid yihiin nadaafadda iyo biyaha 2,080 qoys oo u dhigma 12,500 bulsho ama qofood oo ku nool Shangalle iyo deegaanada kale ee gobolka Cayn waana waxaan siinay biyadaan xilliga abaarto sidoo kale agab nadaafadeed baan siinay kuna tababarnay 2,080 qoys sidoo kale xilligaas waxaa la sameeyay waxa la yiraahdo in dadka laga caawiyo sidii ay u raadsan lahaayeen xal waara oo loo helo biyaha waxaa ka mid ah inay qotaan balliga oo hadda maasha Allah progress badan laga sameeyay waxaa ka mid ah mashaariicda la qabtay ama hay'addu haddaba ka shaqeyso caafimaadka iyo nafaqeynta oo ay ka mid tahay 15 xarumood oo caafimaad oo ku yaala gobolka Cayn inaan ka bixinno caafimaad free ah iyo nafaqeyn carruurta ka yar 5 sano waxaa ka mid ah mashaariicda aanu ka shaqeyno waxbarashada gaar ahaan education in emergency waxa la yiraahdo oo ah waxbarashada xilliga emergency-ga aad baan waxaan u soo dhaweynaynaa mas'uuliyiinta ururka naado aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan kala soo dhaweynayaa cid allaale intii ka shaqeynaysa horumarka gobolka yaan soo dhaweynayaa waxaan arrintan uga faa'iideysanayaa qof kasta waxaa loo baahan yahay inuu wax ka tago tacaba haddii aad geed beerto waxa weeyaan ajar ku soconayaad ka tegaysaa haddaad maaragtay laan wadada ku soo baxda jarto ajar sanaadaad ka helaysaa dowladda Puntland hay-adaha aan la shaqeyno hay-adda NDO oo kale waxa weeye waxaanu kala shaqeynaa hay-ad ka soo caafimaad ama nafaqo wada gobolka ayaanu partners kala qaadanaa annagoo sameynayna la socodka iyo dabagalka iyo coordinatorka hawsha meesha ka socota hay-adaha marka hadda gobolka ku jira wasaaradda caafimaadka ay hoostaga ay wada shaqeeyaan waa laba hay-adood hay-adda NDO oo halkan maanta inagu marti qaaday iyo hay-adda Mercy USA oo iyaduna ku jirta 17 xarumood oo nafaqo la'aanta dhexa iyo hay-adda NDO oo wada qaybta caafimaadka iyo nafaqo la'aanta xoogan iyaguna labada qaybood bay ka wadaan oo yaa jiray kuwa caalamiga baa jiray yani dagaalka NDO bulshada u gashay oraska u oroday waxa inta ay u raadisay ilaa hadda 20ka iyo dhowrka sano ama 30ka sano waxa ku dhadhow maartay dawladlaanta aynu ahayn waxaan garanaa hay-ad inta u oroday inaanay jirin way dadaaleen meesha wax uga raadin karayaan ba uga raadiyeen وعلى عثمان سعد الدكتور ورسل فريش عالمي الصومالي نيوز